murtida maanta. Dudumo in la dareensado iyo in la dugsado iskuma leh. Dudumo sida aad ogtihiin waa taalada aboorku dhisee u yeelo godadka dhaadheer ee halaqgaleenka ah. Qofkii gabbaad bidana haddii uu dhaxan ka dugsado ama uu hooskeeda ku jalbeebto aalaaba waa dareen qaba oo waxa uu ka baqaa in bahal uga soo baxo halkaas. Sidaas daraaddeed ayaa murtidu waxa ayna leedahay haddii aadan ka maarmaynin dudumada, dareenka iska ilaali, aashaa iska dugso, kollayba wixii kugu dhici lahaa iyadoo ayan ku seegaynin. Haddii aanu furfuro, murtidu waxa ayna leedahay waxa ay u kala kacahayaan ee u kala dilaacahayaan meelo badan. Aan ka soo qaadno in koox dadihi meel ka wada shaqayso oo laga doonahayo hawsha ay halkaa ka hayaan inay socodsiiyaan. Waxaana la og yahay inuu halkaa jiro qof kooxdaas ka mid ah ee hawshaas madax ka ah ee ilaalin hayee dadka halkaa ka shaqaynahaya, gartana u kala soorahaya, sida ay wax ku wadaanna fiirinahaya, waxa ay kala mudan yihiinna kala gaarsiinahaya. Halkaa marka dadka ka shaqeeya waxaa laga doonahayaa oo ay murtidu na leedahay ma aha inay dareensadaan qofka halkaa madaxda ka ah. Maxaa yeelay mar haddii qofku arrinta adiga iyo asagaba ka dhaxaysa uu madax u yahay, waxaa dhab ah haddii uu qabo ra'yi wanaagsan ama daacadnimo inuu u socodsiinhayo si toosan, adigana uusan kugu tiigsanayn ee kaa fiirsanahayo hadba sidaad abbaartaada uga soo baxdo. Sidaa daraaddeed ayayan habboonayn inaad dareensato oo dareen kaa galo in qofkaasu ku waxyeelaynahayo oo sharafkaaga wax u dhimahayo ama xuquuqda aad mudan tahay uu hortaagan yahay. Asagana sida laga doonahayaa waxa weeyaan si aan loo dareensan ee daacadnimo ah inuu hawsha u wata. Meel kastana waa sidaasoo kale oo dadkii wax wada qabsanhaya waxaa ugu horreeya waxqabsigooda inay yeeshaan aamin oo ayan dhexdooda xumaan isku dareemin. Haddii aan ka soo qabanno macallinka iyo ardayga, macallinku wuxuu waxbarayaa ardayga, daacadna waxa uu u yahay hagaajintiisa iyo siduu ugu yeeli lahaa waxgarasho fiican iyo adab toosan. Ardaygu hadduu dareensado macallinkiisa ee markaa is yidhaahdo macallinku sida aad doonayso wax kuu bari mahayo ama waa uu ku xumaynahayaa, waxaa ku imaanaysa taagdarro iyo niyo xumo oo xaggii waxbarashada uu ka gaabiyo. Waxayna noqonaysaa murtida aanu maanta ka hadlayno mid ay tilmaamayso ee ah dudumo in la dugsado iyo in la dareensado iskuma leh. Qofka buka ee doonahaya inuu dawo helo hadduu takhtarkii u tago ee uusan raacinin waanooyinka takhtarka iyo waxyaalaha uu u tilmaamahayo ee uu dareen xaggii takhtarka ka qaado, asaguna dawadiisii iyo fayoobidii uu doonahayay heli mahayo oo waa sida murtidu ay sheegayso. Meel kasto oo nolosheennu ku jirto waxay u baahan tahay marka horeba in la iska jiraa dareen xun inuu ku galo ee daacaddaada la wataa. Wixii qalloocani ayagaa sidooda u soo bannaan baxahaya oo aan ninna ka qarsoonayn ee waxaa adiga lagaaga baahan yahay daacadnimadaada inaad uga qayb gashaa, tirsataana in daacadnimo lagugula shaqaysanayo ee wax lagugula qabanahayo.